Salaamullaahi calaykum asxaabta. Maanta kusoo dhawaada. Maanta waxaan idin hayaa mowduucaas oo ku saabsan Soomaalida waxbaratay ku saabsan. Marka Soomaalida waxbaratay yara inaan maanta ka hadlo iyo qiimahooda. Kuwa waxbaran ayaga mashruuc kale oo kuwaasi waa ciwaan kale ama muuqaal kale oo hadli doona. Laakiin maanta waxaan rabaa Soomaalida waxbaratay qaabkooda bal inaan yar korfeeno. Ilaahay naga fahansiin aan ka dhahno waxaan khaladnane famina shaydaan waxaan saxnane Allah ajirkeena siiyo ma kartan. Soo marka ayaan dhaxdaas adiga maxay ahaydeen waraaq immigration camal rabay inaan xareeyo. Soo marka waraaqda immigration rabay inaan xareeyo marka wadanka system waxa uu yaala shaqada waa la kala leeyahay. Haddii rabto tusaale ahaan inaa xareyso marriage camal oo kale, ama haddii rabto inaa xareyso work permit camal oo kale, ama haddii rabto inaa xareyso passport camal oo kale, ama haddii rabto inaa xareyso PR camal oo kale, ama haddii rabto inaa xareyso camal oo kale lesson camal oo kale way kala duwan tahay. Soo marka wax walbo meel walbo waxay leedahay office gooni leedahay. Tusaale ahaan haddii rabto maanta inaa xareyso PR office-ka PR ka aadaysaa ama waxa aadaysaa Kenya Service camal aadaysaa Ontario Service ma aadaysid. Marka waraaqda marka aan damcayna xareeyo waraaqda qofkana shaqadiisa waaye. Marka waxaa ka mid Soomaali waa taqaanaa marka dhaqankeeda meel walba tagto isma bedelayso, waa sideedii. Beentii waa sideedii, khiyaanada waa sideedii, waxaa kaloo meesha ku jirto ballan darrada waa sideedii. oo soo shaqo galaa birta imaana saa damba imaana. Adiga waraaqdaas aniga waa qoran karay laakiin saacada aniga wax ma qoran karo. Waa in systemka dowladda dejisa inaan raacaa, kama gudbi karo, kamana weyn systemka. Soo marka yar Soomaali ahaa waraaqdana wax hal page dhan marka wax hal page dhan oo qof walba qoran karo. Laakiin saacada adigu ma qoran kartid, waa in ay ku soo qoraan marka ama community waa in ku soo qoraan marka. Soo marka yarkii marka 3 maalin dhan waxaan dhahay maalin buucay nin xafiiskii ma joogtaa waan joogaa. Bas maalinkii u darna marka waxay ahayd intuu dhahay waa joogaa aan handala maxay ahayd markaa meesha tagay meesha waa xiran tahay ma joogo. Waan wacay telefonka igama qabanayo. Haddana waa ku celiyay at least 3 times wacay. Marka tan waxaan ku dhahay fuck off baan ku dhahay marka waxaan ku dhahay sameeynin maalinka afraad soo wacay marka wuu ku dhahay maxay ahayd hadda waan joogaa xafiiska. aan ku dhahay hadda jaanis ma hayo, maalin kale ku imaanaya yaan ku imaanaya. Bas kadib marka asagii fariin dheer baa u diray oo complain aan asaga complain gareenayo. Marka waxaana u sheegay dhalishiisa, wax kale uma sheegin. Dhalishiisa yaan u sheegay. Isla markii fariinteedii ay gaadhay wuxuu ugu dhahay saaxiib maxaad ka wadaa waxani, maxaa waxaan u samaynaysaa. Aan ku dhahay aniga xaqaa leeyahay inaan waxaan ku dhahay wixii aan u arko sharci darro waa inaan sheegaa. Adiga waxaan ku dhahay qaabka igu adeegayso waxaan ku dhahay waa inaan waxaan ku dhahay sheegaa inuu wanaagsan yahay iyo inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay. Haddii aad shaqada ka soo baxdo waxaan ku leeyahay keep going. Haddii aad laakiin shaqadaada ka soo bixin waan kuu sheegaa cilada meesha ka jirto.
cilada meeshay ka jirtaan kuu sheegayaa. Adiga yarkii dood dheer kadib waxaan ku dhahay aniga waxaan ku dhahay intaasoo mar maku soo wacay haa taleefanka ma iga qaban weysa haa. Marka waxaan ku dhahay waay marka waxaan ku dhahay maxay tartaan ku dhahay aqoontaada ii sheeg. Aqoontaada waa inaad dadkaaga caawisaa, wax kale maahan aqoonta lagu sheegayo. Soomaalidana aqoonta ay baratay waxba kama soo qaadeen, qabiilkaa kala weyn. Marka qof qabiil ka weyn yahayna aqoonyahan ma la dhihi karo, because of xitaa Soomaalida qaarkood diinta waxay ka hormarinayaan qabiil ka hormarinayaan, ma garad. Marka 100% markaa fiiriso xitaa markaa fiiriso masaajida camal oo kale ya qaab waxay u samaysan yihiin qabiil aqoonyahankoodii, caalimkoodii, sheekhoodii, caamadoodii oo isku dhex jiraan, ma garad. waxaa leeyahay in hebel waxaa hataaban laandheer ninkas lama hadlo. Marka adiga yarkii dood dheer kadib wuxuu dhahay maalinta berito iimow xilligaasi aan u imaaday. Kadib yarkii yar wuxuu ahaa markaan kombolagaray kadib khaladkiisii qaatay wuu nala soo xiriiray. Marka wuxuu dhahay niyahow way jirtaa arrimo noocan camal oo kaleeto way dhacaan, laakiin noo Soomaali baan nahay, ka raali noqo, waana ka raali gelinayaa. Marka waxaan ku dhahay waxba raali gelin uma baahni baan ku dhahay, laakiin waxaan ku dhahay waa laga yaabaa waan ku dhahay dad fara badan ku samaysay arrinka noocan oo kaleeta ah. Aniga waxaan ku dhahay kuwa uma ihi labana uma ihi umana dambeyn doono, laakiin waxaan ku dhahay sumcadaada ilaasho, because of dadka aad u shaqeyn waa dad Soomaali aan ku dhahay. Ajnabi ma ku imaanaan ku dhahay, ajnabi kuma soo doonanayo mana ku imaanayo. Haddii marka communitygaada ay kaa cararaan yaa ku imaanaya isheeg. Marka tusaale ahaan hadda anoo kalo marka maanta kalo wax ugu sameeyo hadduusan wixii kasoo laabanin waxaan dhihi kaas miyaha ha u tegin ninkaas nin lazy waaye, shaqada ma qabsanayo, ma ku caawinayo. dowladdeena wuxuu leeyahay nin dadkaana caawiyaa oo maalin walba dadkaana ii yimaado. Marka baliis Soomaali Maxamed qofka wax bartay dar ilaah u bartay weliba dar ilaahi ha u caawiyo bulshada, dar ilaahi ha u caawiyo inta wax baratay. inta wax barana waxaan leeyahay wax barta, inta waqtiga u saamaxayna waxaa leeyahay ilaahay waqti kale wax ku bartaan ha idin siiyo. inta ilaahay waqtiga weli uusan waafajinina waxaan leeyahay ilaahay waqti ha idin siiyo wax ku bartaan. ilaahay cimri dheeri caafimaad hana wada siiyo. asxaabta waa idin salaamayaa. intaasaa maanta rabay oo update ahayd oo idinka dambeysay. Marka waxaan rabay inaan idinka daba gaarsiiyo.